بسم الله الرحمن الرحيم. وزير كسودو مقالة قالكعية كسودو قرانك عبد الله عيسى. قرانك عبد الله عيسى وحصان مرة هيرر كل دوون. السجاشميدة مركز يقول رئيسي الحراري ود. قرانك أنا دركيسي. وحصان مرة هير. ما تغنى نعكس تلاقي سود بي أو ده تقارن إسكتين إني دجان واحد دفاعي لما يرد مقالة قالكعية. markii ugu horeysay waxa la sameeyay wax ka yar mitir baa la heerariyay oo Olimbikada iyo ba hawshaas qabatay dadka deegaanka kadib waxa loo dhisay darbigan dheer oo aad u adag oo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay hormuud iyo ka ahaayeen kadib waxa loo dhisay meelaha la fariisanayo haatan wuxuu martigeliyay sanadkii la soo dhaafay kulan weyn oo galmudug markii ugu horeysay ka qabsoomay koobka degmooyinka galmudug wuxuu soo jeediyay indhaha caalamka iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed koobkaas wixii ka dambeeyay dadka reer galmudug oo gudaha joogay kuwa dibadda joogay waxay ku taliyeen garoonka in horumarin lagu sameeyo hay'adda intuu socday ciyaaraha wuxuu leefka ahaa TV-ga galmudug waxay arkeen garoonka dacdarada ka muuqata soo jeedintaas waxa ka jawaabay wasaaradda sportska iyo degmada Gaalkacyo baa ka jawaabay waxay dhiseen guddi hawshan garoonka mataqaanaa u istaaga isla markaasna dhismaheeda horumarintiisa ka qayb qaata guddigaas oo ka kooban dhammaan qaybaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo dadka ku nool bulshada ku nool haday ahaan lahaayeen suxufiyiin haday ahaan lahaayeen macallimiin haday ahaan lahaayeen dad ka shaqeeya humanitarianka haday ahaan lahaayeen dhaqaatiir intaba guddiga markii la dhisay kadib guddiga wuxuu sameeyay howlihiisii ugu horeysay waxaa la soo wacay dadka magaalada Gaalkacyo oo loo sameeyay mataqaana kulankaas la soo keenay dadka reer Gaalkacyo waxay ku yawaan lacag ku dhow $60,000 lacag $60,000 ah baa bilow ahayd garoonkan ka hor waxaa la sameeyay qiimeyn iyo naqshad ba garoonka loo sameeyay waxaa dhowr injineer baa la geliyay oo sameeyay mataqaana assessment injineeradii ugu dambeyn waxay soo saareen dhalinyaro ka soo dhexbaxay dhalinyarada hadday noqoto sida uga qayb qaateen nabadgelyada iyo heshiisiinta iyo howlaha ay ka wadaan isdhexgalka bulshada magaalada Gaalkacyo ay ka wadaan hadday noqoto dhanka ay ka sameynayaan dhanka sportiga horumarka ay ka sameynayaan iyo sida isugu duuban yihiin isugu birreen midaysan yihiin aad baan ugu hambaleynayaa mar labaad iyo mar saddexaad dhalinyarada reer Gaalkacyo waxay idin rajeynayaa inaad dadaalka halkaa ka sii wadaan inaad qudwo iyo tusaale u noqotaan dhalinyarada kale reer galmudug ay idinku hoggaanka u qabataan saad la socotiin Gaalkacyo waa wadnihii galmudug waa meesha galmudug ka aasaasantay marka qof walbaba sawirka guud oo Gaalkacyo wuxuu matalayaa galmudug marka aad baan idinku mahadcelinaysaa doorkiina qayimka uga qaadanaysaan waana wada joognaa maalmahan soo socda ilaa yiraahdo wada sheekaysanaynaa waana